الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وحكمدها إنه مجتمع قيبه قيب كمده وهذا الأجيديو توجيهات خاصة إنه أجيديو سيقوني إنه أوله الله تلوين خاصة إنه سيو وحكمده قيبها سيدا قوني ذا النبي أوله الله صلى الله عليه وآله وسلم أما أتوجيهي وحكمده لن يرده وحديث فربض النبي كجاه الله صلوات ربي وسلامه عليه أو كم يديه حديث عبد الله بن مسعود بخاري ومسلم أي صارين والنبي صلى الله عليه وسلم لن يروي عديني أودي كرتهج وستو محايا لي حبين كاجا ترن كأنا واكو إلى شمية شهوة ذا يا حليسك كوهيستنا وكاجا فضضانيا إشهادنا حمانت إن أتكلمتو أيوه جوركو كوجو كالمينيا إدي أن أود لهين جورنا هالصونتو صونك أيا شهودي سجبينيا أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم حديث فربنا وكاسي كم بدي هيبو النبي يقول لن يرضى كله الله صلى الله عليه وآله وسلم لن يرضوا أهمية دو ذيلي سيداس درادت أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيكوني مضنان أسين شري صلوات ربي والسلام عليه مرحلة دلين يرى النمضو وروح الدأذا كتشرو ومرحلة هل استيضاله لأنك كلنا مهمة دلين يرى إن مضنان لسيو ولا توجيهيو وأي حقاقان أهمية خاصة أمضى أولى ضحي حيا لي وأمرك كوبادي واترضى أقبضا مجتمعات كمسلم كأوار ليرو بقول كيف التضبات تنكبضا بعد ليرا هي جا ماجورتي ومد لباده دليرادو وقيبت بالشدة كمده وعدوك إلهي تبارك وتعالى وحوق صارو قبل ويل الباء وتارجت وحي تارجت ويهين شياطين تا بني آدم كا يقال ضع هي كوة تشينك لبضبا حيالي الشياطين تو وحي أكتهي لن يرضى إني دوفسطو إني أغفض الضحي دادك الدأدا يقضياشي هبرها إني دوفسطان ساستراتي إيجا هدفة وفئة مستهدفة ومدى السدح هذا لن يرضوا ومستقبل كمجتمعات كي بالشدة وهجانك مستقبلك وعلمدي مستقبلك ومدحدي مستقبلك ودخاتيرتي مستقبلك ومجتمع اليدي سي مجتمع اليدي مجتمع يقع دحلي دونا سيداس درادد هداد ربط أمد مستقبل كذا إن أتصاد على صوت دليرتيدا لا فيريا حال كدليرتو كسغيهين وحو فسريا مجتمع سي مستقبل كويلان دونا سيدو ويغي أهمية دودي مركليه مدى أفرادي وحوي دليردو هدي هجاجان مرحلة دلير النمدأ ومرحلة وحصو صارك
iyo daaqada iyo awoodda ugu badan ee wax soo saarta waaye. bini aadamku marxalada dhalinyaranimada hadduu dhaafo waa daciifayaa, wax soo saarkiisuna waa yaraanayaa. ummadaha horumarkooda adduun iyo aakhiraba waxay ku xidhan tahay kolba dhaqanka iyo qaabkay dhalinyaradooda u dhaqmaan. sidaas daraaddeed bay mudnaan khaasa leedahay in dhalinyarada la siiyo mudnaantooda la siiyo. ummadda danteedii baa ku jirta. annagoo qodobkaa ka duulaynay iyo qodobadaa ka duulaynay iyo hadyigii nabigeenna sala allahu calayhi waaalihi wasalam ayaa waxaan jecel lahay inaan halkan ka bilowno fariimo istaba yaalla oo aan u gudbin doono dhalinyarada muslimiinta ee maanta jooga. silsilad fariimo ah. fariinta ugu horreysa, dhalinyaradu waa inay fahmaan marxalada ay marayaan ee dhalinyaranimada ah. faham bay uga baahan tahay. waa marxalo laba arrimoodba xambaarsan. waa mid waa marxalo muhim ah noloshaada, marxalada ugu muhiimsan waaye. waa midda labaadee waa marxalo khatar ah oo halis ah, oo bini aadamka inta ka badbaada halistiisa ay yar tahay. inay halis tahayna waxaa tilmaamaya kow, marxalada dhalinyaranimada waxaa xoog badan caatifada iyo xamaaska iyo quwadda waxqabo wax dhaqaaji ah iyo ka fiirsi la-aanta. arrimo u baahan in 10 sano laga baaraan dego ayuu ninka dhalinyaradii daqiiqado gudahood qalinka ku duugayaa, kadibna fulinteeduu bilaabayaaba. sugi maayo, kana fiirsan maayo. waa marxalad caatifada iyo xamaasadu xoog badan tahay. talabaad waa marxalad aqoontiiyo waaye aragnimadu yar tahay. inta badan marxalada dhalinyaranimada aqoonta midda maadiga iyo midda diiniguba waa yar tahay ama maba jirto dadka qaarkood agtooda. waxaa intaa dheer waaye aragnimona ma leh. leanna waaye aragnimadu waxay ku timaadaa ruuxu muddo dheer inuu noolaado oo nolosha uu la tafaaculo oo uu wax badan arko oo uu wax badan la noolaado oo wax badan la dhaqmo. xataa hadduusan aqoon lahayn khibrad baa abuurmaysa, waayo aragnimaa abuurmaya. saas daraaddeed waayo aragnimona ma jirto, aqoontiina ama way yar tahay ama maba jirtaba. waa midda saddexaad ama afraade, marxalada waxaa ka tan badan ruuxa dhalinyarada ah shahwada, damaca, doonitaanka adduunyada, dhaldhalaalkeeda, shahawaadka ayaa xoog badan. mar kasta oo ruuxu uu da' sii noqdo shahawaadkiisu waa daciifayaan. mar walbo da'du la sii durugto shahwadiisu waa daciifaysaa. laakiin marxalada dhalinyaranimada waa marxalada shahwadiisu ugu xoog badan tahay. ka waran haddii caqligiina yar yahay, waayo aragnimadiina yar tahay, caadifadiina xoog badan tahay, shahwadaaduna xoog badan tahay, cadowgaagiina ku helo, xaalkaagu xaggee joogaa? seed ku badbaadi? waa marxalad marka khatarteeda leh. marka labaadna ahmiyaddeeda lahoo marxaladaasi hadduu ruuxu ka faa'iidaysto oo si wanaagsan u isticmaalo, cimrigiisa inta dambe oo dhan iyaduu ku dhismayaa. hadduu marxaladaa geliyo, wanaag geliyo, wuxuu goosan karaa ama tabcan karaa waxaan la tabci karin oo la goosan karaynin maraaxisha dambe ee ka dambaysa dhalinyaranimada. marka dhinacna waa muhim, dhinacna waa halis, waa khatar.
sidaas daraaddeed baa waxaa la yidhaahdaa dhalinyaranimadu waa nooc waalida ka mid ah. waxaa laga wadaa fudaydka. nabigeennuna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markuu ka hadlayay dhallinyarada khawaarijta ah oo dariiqii sunnada ka baxay, wuxuu nebigu tilmaamay sala allahu calayhi waalihi wasalam, wuxuu yidhi waxaa imaan doona aakhiru zamaanka soo bixi doona dad dhallinyaro ah haddana caqli fudud. waxay leeyihin culimmadu wuxuu nebigu isugu lamaaniyey dhallinyaronimada iyo da'yarida iyo caqli fudaydka wuxuu isugu lamaaniyey inta badan way isleeyihiin. leanna ruuxa dhallinyarada intuu geed ka booduu tale ka boodaa, bimacnaa wax way arrimaha mana qiyaasi karo, cawaaqibteedana ma fahmi karo. marka khifa fudayd caqli yaa dhallinyaronimada la socda inta badan iyo da'yarida. cumar ibn khadaab radia allahu tacaala canhu wa ardaah, mustadraku lxaakim sida ku yimid, wuxuu leeyahay iyaaka wacahrata ashabaab, waxaad iska jirtaa simbiririxada dhallinyaronimada. dhallinyaronimadu waa simbiririxo, dhallinyaronimadu waa cagtoo fakata, dhallinyaronimadu waa khaladaad iyo gaalnimo iyo kufri iyo bidco ruuxu ku dhaco, dhallinyaronimadu waa shahwo iyo zino iyo faaxisho iyo qashin, dhallinyaronimadu waa hallow iyo dariiqood ka inxiraafto. iyaaka wacahrata ashabaab, waa halis. maadaama halista ay leedahay ayay u baahan tahay marka inaad ku baraarugtaan. alimaam abubakr axmed ilmaliki wuxuu ku keenay kitaabkiisa almujaalasa wa jawaahir اlcilmi, wuxuu ku keenay ahar uu ka warinayo alimaam اlasmaci. wuxuu leeyahay sulaymaan bnu cabdilmalik ayaa wuxuu soo galay masjid. masaajidkii markuu soo galay wuxuu ugu soo galay oo uu arkay nin oday ah oo da-ah. markaasuu wuxuu ku yidhi, oday, inaad dhimasho ma jeceshahay? markaasuu yidhi, maya wallaahi ma jecel inaan dhinto. markaasuu ku yidhi, oo da-danaabaad joogtaaye inaad dhimato maxaad ku diidi? yacni da- weyn buu gaadhay oo silica. odaygii wuxuu ku jawaabay, dhallinyaronimadii way tagtay buu yidhi iyo sharkeedii, odaynimadii iyo khayrkeediina waa ii timid buu yidhi, waa hayaa. haddaan istaago ilaahay baan xusaa, haddaan fadhiistana ilaahay baan mahadiyaa. labadaa qodobi inay iga tagaan oo ay yacni idhaafaanna ma jecli. u fiirsada, dhallinyaronimadii iyo sharkeedii tagtay, odaynimadeedii iyo khayrkeediina imaah. oday wax u laabani ma jiro. asal waxaa waa inuu qaabilo khayrka, qaabilo hanuuno, cimrigiisa diinta yartee u laaban ka faa'iidaysto. wax ku xambaaraya xumaan inuu sameeyaay waa yar tahay. saas daraaddeed baa nabigeennu sal alla alay wasalam saddexda ruux ee maalinta qiyaamada ilaahay uusan la hadlaynin, il naxariisna uusan ku fiirinaynin, uusan daahirinaynin, waxaa ka mid ah oday zaani ah, nin da-ah oo haddana gabdhaha foodleyda eryanaya isagoo da-ah. limaada? ka dhallinyarada zino waa zino, laakiin odayga maxaa loo soo qabtay? leanna odayga wax ku xambaara ma jiro. waa un xumaan lafaha kaga jirta, laakiin wax ku qasbaayo ma jiro. shahwadiisii dhammaatay, waa jilcay. marxaladii uu qashin taageeri lahaa ama u ordi lahaa ma joogo. marxaladuu qabyaalo taageeri lahaa ma joogo. marxaladuu qashin iyo shubhaad iyo shahawaad geli lahaa ma joogo. marxaladii uu toobad keeni lahaa oo fadhigana ilaahay ku xusi lahaa, taagnidana ilaahay ku mahadin lahaa buu joogaa. laakiin in badanoo odayaasheenna ka mida maanta xaalkoodu saa maaha. dhallinyaradii baa dhaantay. ila llaahi almushtaka. marxaladaasi marka waa marxalad halisa. sidaas daraaddeed
ayaa cidda badbaado oo dhallinyaronimadiiyo marxaladeeda ka badbaadaay ay yar tahay. inay yar tahay maxaa ku tusaya? nebi maxamed wuxuu yidhi sal alla alay wasalam xadiidka saxiix albukhaari ku yimi min xadiidi abi hurayra, 7 ilaahay baa maalinta qiyaamada hoosayn doona hooskiisa maalinkaasoon hoos kala jirin ilaa kiisa mooye. 7 ayaa ka mida ilaahay carshigiisa maalinta qiyaamada harsan doona. waxaa ka mida shaabun nasha'a fii cibaadati illaah, ruux dhallinyaro ah oo ku barbaaray ilaahay cibaadadiisa. ma leexanin, ma ciyaar suuqaynin, laalaab ma gelin, ma inxiraafin. siduu sunnada u fahmay yaraantiisii ayuu ku socday, ku weynaaday, ku geeriyooday. shaabun nasha'a fii cibaadati illaah. waxaad is weydiin kartaa, maxaa nin dhallinyaro ah, ruux dhallinyaro ah, wiil iyo rag midku noqdaba, rag iyo dumar midku noqdaba, dhallinyaro cibaadada ilaahay ku kortoo ku barbaartay, maxaa dhallinyaronimada ku jirta iyo in cibaadada ilaahay lagu barbaaro? bimacnaa waxa weeye way yar tahay, way yar tahay. waxaa badan inta ka leexanaysa khadka, waxaa badan inta xumaanta cumrigooda ku qaadanaya, ku barbaaraya, inta wanaagga ku barbaaraysaa yar. sidaas daraaddeed baa ilaahay abaalgud wuxuu uga dhigay in ay carshiga kuwa harsanaya ka mid noqdaan. leanna ruuxa dhallinyarada ilaahay cibaadadiisa ku barbaaray, inta shay ee uu la dagaalamay ee iska celiyey bitawfiiqi illaah wax la qiyaasi kara ma aha. imise shay buu iska xakameeyey, imise shay buu iska celiyey, waa waxaan la qiyaasi karayno. isla arrintaa waxaa tilmaamaya xadiidka nabigeenna sala allahu calayh waalihi wasalam, culimmada qaarkood ay leeyihin xasan ligayrihi, oo nabigu leeyahy sal alla alay wasalam, allah wuxuu la cajabaa ruux dhallinyaro ah oo aan leexasho lahayn. allahu akbar. ruux dhallinyaro ah ilaahay baa la cajaba. waa sifa min sifaat illaah. allah wuu jecel yahay ruux dhallinyaro ah oon dhallinyarayn lahayn, oon ciyaal suuqayn lahayn, oon leexasho lahayn, oo shahwaadka iyo shubahaadka midna ku leexanin, oo dariiqa toosan qabsaday, ku barbaaray, ku weynaaday, ku geeriyooday. allaha samaawaadka iyo dhulalka abuuray baa la cajaba. limaada? bal isweydiiye, limaada? lianna waa wax yar, lianna waa naadir, lianna inta halaagsamaysaa badan, inta badbaadaysae marxaladaa dhallinyaronimada badbaadaysaa yar. saas daraaddeed bay cajab tahay. inta uu la dagaalamayaa badan, shahwadiisii buu la dagaalami, shaydaankii buu la dagaalami, gaaladii iyo aafaadkoodii iyo hay-adahoodiiyo waxay faafinayeen buu la dagaalami oo iska celin, ilxaadkii buu iska celin, bidcadii buu iska celin, naftiisii buu iska celin. inta shay-a uu dagaal kula jiray ka reeyey baan xad lahayn. ninka dhallinyaradii dagaal adag buu ka soo baxo ku guulaystay. sidaas daraaddeed in lala cajabo meeshuu ka soo baxay iyo marxaladuu ka soo gudbay waa wax lala yaabo oo lala cajabo waaye. waana midda keentay inuu muto inuu ka mid noqdo 7 ilaahay carshigiisa maalinta qiyaamada harsan doona. risaalada iyo fariinta ugu horeysa, fariimaha taxanaha ah ee dhallinyarada aan u jeedinayna waxa weeye fariinta ugu horeysa, marxalada dhallinyaronimada eed maraysaan waa inaad fahantaan xaalkeeda iyo siday tahay iyo ahmiyaddeeda iyo halisteeda, intaba inaad fahamkeeda iyo garashadeeda leedahay si aad markaas si saxa ula tacaamusho. waa risaaladii iyo fariintii ugu horeysay. fariimaha kale waxaynu ku qaadan doonaa khutabka soo socdee. sallu wasallimu calaa khaatami alanbiyaai waalmursaliin. allahuma salli wasallim wabaarik calaa cabdika warasuulika muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin, warda allahuma can alsaxaabati waataabiciin وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.